بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka maxaa ka soo kordhay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Dowxa sidee ayay wax u dhaceen yaa lagu wargeliyay suuragal ma tahay in qorshahani uu ahaa mid la isla ogaa waa maxay hanjabaadaha ay dadka Israa'iil taageero markaan ay u dirayaan dhanka iyo dalka Turkiga waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad dhameystiran oo ku saabsan halka ay diyaaradaha Israa'iil isticmaali karayaan si weerarkani oo kale ay u fuliyaan sida wax loo qorsheeyay iyo macluumaad guud ahaan arrimahani oo idil ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa waxaan sidoo kale aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan Masar oo sheegtay inaysan Ethiopia u ogolaan doonin maamulka kheyraadka biyaha xireenka maanta xariga laga jaray waxaan kula wadaagi doonaa wafdiga ka socda Ruushka ee maanta tagay gudaha dalka Syria iyo wararkii ugu dambeeyay soo kordhay magaalada Gaza maxaa ka cusub qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka تعليم أونلاين وكليات أذكار برانكرتو حفظنا القرآن الكريم كا يعلم تأساسي كا دين الإسلام كا أديكو تشوفا قريبا كا سلام كان هذا السنة يا قد كإنترنت كا ساعد والبا هي وقت والبا كبر تعليم أونلاين القرآن الكريم كا تفسير كا فقه أحاديث لغة عربية يوم ما دين كلا إسلامي كا وحنا كبر دونتا سومالي إنجليش يا عربي أيضا أديكو سيودان وقوة قبنا يقيمة تجبان حرونتا ما كان وحي كتا لا مقالة نيروبي وحي فافاينا وديريا كلا حرير تلفونات شاشتك على مقدار markale isku soo noqod wanaagsan qiyaartina daawanaysay waxaan ku hormarayaa maanta magaalada Dowxa ee dalka Qatar waxa ka dhacay weerar duqeyn ah oo Israa'iil ay sheegatay mas'uuliyadda weerarka Israa'iil qorshaha weerarka ay ka lahayd waxa uu ahaa inay ku bartilmaameedsadaan magaalada Dowxa Khalil al-Haya Khalid Mash'al inkastoo la sheegay Khalid inuusan goobta ku sugnayn marka weerarka uu dhacayay Zahir Jabarin iyo sidoo kale Nazir ama Nisar Awadallah mas'uuliyiintan waxay ku kulansanayeen goobta weerarka uu ka dhacay xilligaas waxa la sheegay inay ka wada hadlayeen jawaab ay ka bixiyaan madaxweyne Trump iyo hadalkiisii shalay aan marka hore dul istaagno hadaladii shalay iyo sida sheekadan ay isu lahaan karto kadibna waxaan eegaynaa macluumaad iyo falanqayn guud ahaan oo ku saabsan arrintan iyo bariga dhexe xaaladiisa waxay ka bedeli karto go'aankan miyaa la isla ogaa oo weerarka lagu fulay iyo arrimo kaleba maalintii shalay madaxweyne Trump wuxuu soo saaray war saxaafadeedkan laakiin inta ugu muhiimsan hadii aan eegno wuxuu yiri tani waxay noqon doontaa digniintaydii ugu dambeysay maxaa yeelay qof kale digniintan la mid ah oo kale idima siin doono dadku waxay u baahan yihiin in la haystayaasha dib loo soo celiyo kadib waxaa xigay hadal hanjabaad ah oo uu diray ra'iisul wasaare Netanyahu oo uu ku leeyahay dadka reer Gaza digniintii ugu dambeysay ayaan siinaya waa inay isaga baxaan magaalada Gaza waxaad moodaa labada hanjabaad inay saacado u dhaxeeyeen kadib waxaa xigtay in dawladda Qatar ay ka dalbatay xoogagga iska caabinta ee Hamas in ay aqbalaan soo jeedinta madaxweyne Trump taas oo dad badan ay u arkayeen inay ahayd fariin kama dambaysa oo dawladda Qatar ay gaarsiinaysay xoogagga iska caabinta ee Hamas maxaa yeelay muddooyinkii ugu dambeeyay iyaga iyo Masar waxay ahaayeen dhexdhexaadiyaasha rasmiga ah laakiin shalay warka ka soo baxay ee ah in Hamas ay ku tiri waa inaad aqbashaan madaxweyne Trump iyo soo jeedintiisa waliba si banaan ah oo warbaahinta lala wadaago micno kale ayaa ku jira oo su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa waxaana ay dadka qaar leeyihiin tani waxay ahayd fariin xoogagga iska caabinta ee Hamas isla maalintii shalayba la gaarsiiyay oo ah in madaxweyne Trump iyo xulafadiisa wax walba ay suuragal ay ka tahay intaanan eegin marka falanqaynta guud ahaan aan eegno wararkii ugu dambeeyay dawladda Qatar waxay sheegtay wali baaritaanna inay wado qasaaraha guud ee ka dhashay duqeyntii maanta waxay sidoo kale sheegeen inay warbaahinta la wadaagi doonaan macluumaad kasta oo ka soo kordha wixii maanta dhacay marka taa laga yimaado waxa soo baxaya in ku dhawaad 15 diyaaradood inay ka qayb galeen howlgalkii maanta 10 gantaal ayaa lagu waramayaa in lagu garaacay xaafadda lagu magacaabo Qatara xaafadan oo magaalada Dowxa ka tirsan iskana ah xaafadaha caadiga ah ee la dago ee dhawaan mashaariicda kala duwan ay dawladda Qatar ay ku dhistay dadka caadiga ahna ay degan yihiin waliba waxa la sheegay in xoogagga iska caabinta wafdiga wada hadallada ku metelaya inay halkan deegaan ay u tahay inta badanna ay ku shiraan marka taa laga yimaado waxa la isweydiinayaa marka sidee ay wax u dhaceen cid faahfaahin ka isla imika ma jirto laakiin suuragalnimada halka ay wax soo mari karaan iyo heshiisyada jiray aan wax yar isla eegno marka aad eegto Israa'iil iyo Qatar waxa u dhaxeeya masaafo gaaraya 1800 ilaa 2000 oo kiiloomitir waxa isweydiin mudan maxay Israa'iil u baahan tahay hadii ay doonayso gudaha Qatar inay weerarto
waxay u baahan tahay haddii diyaarado ay weerarka ku fulinayso in diyaaradahaasi ay usoo dhawaadaan qatar iyagoo isticmaalaya hawada mid ka mid ah dalalka carbeed ama laba ka mid ah dalalka carbeed. tusaale ahaan haddii suuragal ay tahay Israa'iil diyaaradaheeda inay kasoo gudbeen dhinaca Syria, waxay u baahan tahay inay Ciraaq dul marto, kadibna Kuwait ay halkaa kasoo gudubto dhanka badda ah, kadibna sidaa lagu bartilmaameysado qatar. haddii diyaaradahan ay hawada qatar ay dul tageenna waa arrin kale oo yacni u baahan si gaar ahaaneed inaan u eegno waan kula wadaagi doonaa. haddii dhinaca kale ay soo mareen markaa oo ay kasoo weecdeen dhanka Jordan, waxaa qasab ah haddii Jordan diyaaraduhu ay dul mareen inay Sacuudigana dul maraan, sidaasna ay hawada dalka qatar ay ku galaan, maadaama la yiri howlgalka waxaa fuliyay 15 diyaaradood oo geystay ama riday ugu yaraan 10 gantaal. marka aad eegto marka sida ay wax u socdaan, haddii diyaaradaha ay qadadkaas aan sheegnay ay soo mareen, waxay u eg tahay in sheekada la isla ogaa oo ugu yaraan dowladihii ay diyaaradaha si dul mareen lagu wargeliyay sida ay wax u socdaan. fariimihii xalay ka horeeyay weerarkanina ay ahaayeen kuwa degniin ah oo loo dirayay madaxda xogaga iska caabinta ee ku sugan magaalada Dawxa. tani markaa ma waxay ka dhigan tahay Israa'iil horay hanjabaadihii ay u dirtay inay ka dhabaynayso, oo waxay yiraahdeen madaxda ku sugan Qatar, Lubnaan iyo Turkiga ee xogaga ka tirsan meelna inoogama badbaadayaan oo goob kasta waan ku bartilmaameysan karnaa. 31 bishii ina dhaaftay ee Agosto waxaa hanjabaad ah in madaxda Xamaas dibadda lagu bartilmaameysanayo mar kale jeediyay taliyaha ciidamada Israa'iil oo wuxuu yiri meel kasto ay ku sugan yihiin waxa ay noo ballana inaan ku bartilmaameysano. waxa isweydiin mudan marka sidee waxaan oo idil ay ku dhaceen. dhinaca kale Mareykanka nidaam difaacid ayaa u yaala gudaha dalka Qatar, saldhigiisa ugu weyn ee bariga dhexe ayuu ku leeyahay. Qatar iyo Mareykankana waxaa ka dhaxeeya heshiis gooni ah, heshiiskaas oo dhigaya in Qatar haddii la soo weeraro la difaaco. marka miya sheekada la isla ogaa, maadaama wargeyska Axios uu yiri sheekadan ka hor inta weerarka aan la fulin Israa'iil waxay ku wargelisay madaxweyne Trump, maamulka Trumpna wax walba waa uu ogaa. Netanyahu wuxuu yiri annaga ayaa sheekadan fulinay, howlgalka iyo diyaarintiisana lahayn. waxaa halkaa ka cad markaa in Israa'iil kaligeed aysan go'aan gaari karin oo aan lagu xadgudbi karin madax banaanida dowladda Qatar iyo in ugu yaraan la isticmaalo hawada dowladaha kale ee carbeed. maxaa yeelay ugu yaraan Qatar nidaam difaaceedkeeda wuxuu ogaan lahaa dhaqdhaqaaqa dhanka hawada iyo diyaaradaha soo galaya oo ama kuwa ka baxay ayaa la dareemi lahaa. marka ma waxay ka dhigan tahay in la doonayo xogaga in halkaasi madaxda lagu soo gabagabeeyo, isla markaana Israa'iil ay ku hanjabto oo ay warbaahinta keensato scenario ah 7 Oktoobar iyo cid kasta oo ku lug lahayd meel kasta oo ay joogaan waan ku bartilmaameysan karnaa. Mareykanka ogolaanshiyo buuxda inuu bixiyay ayay wararku sheegayaan, maxaa yeelay isagana saldhig ayuu halkaasi ku leeyahay. sheekadana waxa ay u badan tahay marka in la isla ogaa. haddaba markii weerarkaasi u dhacay dowladda Qatar go'aan noocee ayay gaartay. durbaba waxay soo saareen war saxaafadeed ay ku cambaareynayaan sida ay wax u dhaceen. dhammaan dowladaha islaamka iyo caalamkana way ku xigeen oo dowladda aan war saxaafadeed cambaareyna soo saarin ma jirto. guddi ayay sheegtay dowladda Qatar in arrintan ay u xil saareen, guddigaasina baaritaan uu sameyn doono. sidoo kalena waxay sheegeen inay ka baxayaan wada hadalkii lagu dhexdhexaadinayay Xamaas iyo sidoo kale Israa'iil, oo waxay u egtahay inay yiraahdeen yacni meesha doontaan isla aada, wixii hadda ka dambeeya annaga idin sii dhexdhexaadin karayno maadaama aad tihiin labada dhinac marka la eegaba kuwa aanan war maqlaynin. bariga dhexe marka aad eegto marka sheekadan waxay u muuqataa inaysan wax badan ka bedeli doonin haddii sheekada la isla ogaa, laakiin haddii aan la isla ogeyn ayay sheekada dhinaca kale aadi lahayd. waxaad muddaa dhinaca kale madaxweyne Trump inuu markii hore yani guud ahaan Mareykanka oo idil markaan eegno inay markii hore Israa'iil waxyaabaha qaar ay dhihi jireen waxana waa qadcas halka lagama gudbi karo, laakiin hadda 100% in la siiyay Israa'iil awood ay ku bartilmaameysan ama ay ku fulin karayaan wax kasta oo niyadooda ku soo dhac. horeyna madaxweyne Trump sheekadaasi uma uusan mujaamaleynin oo si cad ayuu u sheegay wixii hadda ka dambeeyay Israa'iil wixii aad doontaan ayaad ka sameyn kartaan gudaha magaalada Gaza. waxyaabaha kale ee isweydiinay waxaa kamid ah markaa maxay tahay fariimaha barta Twitterka hadda aadka loogu baahinayo ee ka dhanka Turkiga. markaad eegto dhanka Twitterka waxaba ay dadkii Israa'iiliyiinta taageersanaa iyo kuwii la dhacsanaa iyo Israa'iiliyiintiiba ay leeyihiin yaa xiga ma Ankara qofka xigta aan aragno wad mahadsantiin ciidanka IDF ama Israel Defense Force next ya ah. waxyaabaha la isweydiinayo ayay qayb ka noqotay oo barta Twitterka waxaad moodaa durba dagaal inuu ka bilowday. toddobaadii ka hor Turkiga go'aan ayuu qaatay oo wuxuu yiri dhanka hawada iyo baddaba waa ka mamnuuc diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyo maraakiibtooda, xiriirkii ganacsigana gabi ahaan waan u jarnay. markaad eegto markaa sida guud ahaan ay wax u dhaceen adigu maxay kula tahay aragtidaadana la wadaag.
dowladaha carabta guud ahaan arrintan way cambaareeyeen waxay yiraahdeen madax banaanidii Qatar ayaa lagu xadgudbay dowlad aan war saxaafadeed cambaareyn soo saarina uma maleynaya inay jirto maanta xogagiska cabinta ee Hamas arrintan way ka hadleen mas'uul ka tirsan xogagiska cabinta oo Suhail Al-Hindi lagu magacaabo ayaa telefishinka Al Jazeera la hadlay waxaana uu xaqiijiyay macluumaadka ku saabsan qasaaraha guud ee ka dhashay weerarka maanta waxa uu yiri Khalil Al-Haya wiil uu dhalay Hamam Al-Haya ayaa lagu magacaabaa wiilkaasi iyo mas'uuliin ka tirsanaa xoghayntiisii iyo mas'uul dhanka maamulka xafiiska Khalil Al-Haya qaabilsanaa iyo saraakiil dhinaca amniga ah ayaa ku dhintay duqeyntii maanta Suhail waxa kale uu sheegay Israa'iil inay bartilmaamaysanayso qof kasta oo xor ah oo caalamkani ku nool lana joogo waqtigii midnimo ay muujin lahaayeen guud ahaan caalamka intiisa kale waxaana uu yiri Mareykanka waa in lagula xisaabtamaa mas'uuliyadda weerarkii maanta isagoo sheegay suuragalnimada Mareykanku inuu bixiyo tibiska iyo qaababka maanta loo weeraray goobtay ku sugnaayeen xogagiska caabinta ee Hamas adigu maxay kula tahay aragtidaada nala wada qaybta hoos aragtidaada ku reeb wax walba arrimahan ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah ta'ala wararkii ugu dambeeyay iyo aragtidayda waan kula wadaagay adigana taada nala wadaag dowladda Masar talaadada maanta waxay sheegtay in iyada oo u sii marinaysa wasaaraddeeda arrimaha dibadda ay qoraal ay soo saareen qoraalkaas oo ay ku leeyihiin ma ogolaanayna Ethiopia inay kaligeed ay maamusho maareynta kheyraadka biyaha kadib markii ay bilowday howlgelinta biyo xireenkeeda Ethiopia kaasoo 14 sano kadib xariga laga jaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in warqadda ku saabsan walaacooda ay u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa kale oo ay sheegeen in biyo xireenka Ethiopia kaliya iyaga aysan ka faa'iideysan doonin masaarida 90 ilaa 95% biyaha Ethiopia ka yimaada ee webiga Nile aad ay u isticmaalaan dhanka beeraha iyo marka la eego wax soo saarka dhinaca kale dowladda Masar arrintan wadooyinkii ugu dambeeyay walaac xogan ay ka muujinaysay waxaana yiraahdeen arrintan ma ahan waxaan aqbali kareyno wargeyska macaarif lagu magacaabana waxa uu daabacay macluumaadka ku saabsan in howlgallada xogagiska caabinta ay fulinayeen maalmihii ugu dambeeyay ee farsamooyinka cusub leh inay jahwareer cusub ku ridayaan ciidanka Israa'iil waxaana uu yiri sida waa shimbir ku soo weerartay oo kale howlgalladii ugu dambeeyay xogagu ayay ku bartilmaamaysadeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada Israa'iil waxaana soo baxaya in ay gubeen gawaari iyaga oo halkaasi ku dilay saraakiil ciidan oo kamid aha mid kamid ah taliyaasha ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa dhanka Jabaaliya oo waqooyiga magaalada Gaza dhanka iyo dalka Suuriya hadii aan eegnana wafdi ka socda dowladda Ruushka ayaa maanta gaaray magaalada Dimashq oo caasimada dalka Suuriya ah wafdiga waxa hogaaminayay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Alexander Novak waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Syria Asad al-Shaybani arrimo badan ayay ka wada hadleen Ruushka iyo Syria tan iyo bishii December waxa la aaminsanaa inay sii kala fogaanayaan marka la eego isbedelkii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha dalka Suuriya waxa Syria ay doonayaan in loo soo gacan geliyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Bashar al-Assad oo magaalada Moscow ku sugan sawirro dhawaan laga faafiyay waxay muujinayeen isaga oo garkii uu ku batay sidii qof daa noqday in lagu arko mid kamid ah tareenada magaalada Moscow oo caasimada dalka Ruushka waliba gaari isaga gaar u ah ayay u badan tahay inuu ahaa falanqayntii qaybta wanaagta mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid تعليم أونلاين وكليات أذكر كرتو حفظنا القرآن الكريم كا يعلمت أساسي كا دين الإسلام كا أديكو تشوفا قريبا كا سلام كان هذيك السنة يا قد كإنترنت كا ساعد والبا يوقت والبا كبروا تعليم أونلاين القرآن الكريم كا تفسير كا فقه كا أحاديث كا لغة عربية يوم ما دنيا كلا إسلامي كا وحنا كبرنا نوتا سومالي إنجليش يا عربي أيضا أديك ياسي ودان أقوى قبنا يقيمات تجوان حروت ما حد كان وحي كتار لا مقالة نيروبي وحي فافاينا وديريا كلا حرير تلفونات شاشة كاغا مقدار Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid